عربا كنا كسوق جبجبيو مدحوينا شريف شاكدي هدات وكذا واجي ويلشاس وارون عيدن كحوق دلك الصوماليات أو ميل هبل جوجي يا صبح يا ليرو ميل ماشى سي جوجان وحبين التبانية طبعا تبشروا مرة والبواس كجرت وحلان وحيران إيو بيران إيو هويران إيو وحبدنا مرة والبعيد بدنا يكون شقيني مركان أوتقني سي إيو والرمان واحد ربطة أو جري إيو شجعان سراكيش وحنا إسكتجا أيها كل جودنا الحفريست إيو والرمان ده وإيو والرمان نما استعجادات الشيء شاتي توتاي وتوفري علوش يسوي تسي نعم وكتولنتاي نعم كلنا وكتولنتاي سروالكو كور وحيدي لوكتيسو هدان يتسي شاتي يسيبه قربكيس iyo gacantu hadan itusiyo wuxuu dhahay 9 jeeran dhaawac muu dhahay xabadana dugsiga 15 May aan ka soo bilaabo dhahay saddex wiilo isla dhalato walaalo aan ahayn mid waa dhintay kii kala soo curiyaan oo jooga anigana sidaana u Allah reerkeenu meeshay deganaayeen ma aha meesha walaalkay ku dhintayna reerkeena ijufadeena ma deganeen meelaha aan ku dhaawacmay ee reasonka u dhaawacmayna dawlad Soomaaliland difaacayay beeshayda beel inta ku soo duushay kala badirireen maanta in la iiraa marka waa reer hebelaad tahay iyo kana tahay iyo waa sababta aan meesha uga soo baxnay markaasuu intuu istaago hadana tiriyay oo yiri hebel aawi hebel sagaal nin uu tiriyay oo ciidanka kamid ah sagaalkii nin oo istaagay qaar waa maqnaa intii joogta istaagtay taasoo madaxweyne ku sheegay oo sagaalkaas nin oo aan tiriyay waana urur 400 iyo jarjar awaay sagaalkaas nin oo aan tiriyay marka laga reebo inteenan kala isku beelaan noo dhahay hal beelaan ka soo jeedna waa beesha meeshaan fadhidana askari qalad laga ma waayo gabarow meel ku kufsaday isbaaro inta dhigtay askari maanta joogta laga ma waayo madaxweyne xarama in la wado dhulkii oo dadkeena deganaahana la geeyo eedaasna waa naloo hayn doonaa si ogow gabaray kufsadeen maalin mid kamid kufsaday isbaaro jidhigta waa nala dhihi doonaa laakiin waxaan u taagnay shabaab ay ahaayeen 15 May anta ka soo dhaqaajinaan baraawo geynay baraawo agteedana ka soo noqon haddaan ka nimiday nama qabato in la yiraahdo reer hebel waaye waana dul saaran yihiin waana dhacaayeen waana xumeeyeen dhimashadeena aan waxba laga soo qaadin ee wiil annaga naga mid oo khaldamay qaladka uu sameeyo daba socono raali hal aan leenahay in lagu qaado waa la hadlay waxaan iri wixii aad soo qabateen oo soo dhamaateen oo dhan alif macallin tira waaye maanta da iska tagtaan meeshii ku noqda dadka Soomaaliyeed oo qiimaha lana waa idin aqoonsan yihiin intaas wax ma garatadana warkeeda lama soo qaado meeshii ku noqonaysid meeshii ku noqdeen galabtii waa carabeen baabuurtooda rateen waxay u noqdeen meeshii ka soo baxeen ka yimaadeen u noqdeen dadkan horta dawladnimada marka dawladnimada qiimahaasna waa noogu fadhidaa boqolaal wiil iyo kumanaan wiilad dawlad intaan lama rabo dagaaladii sokeeye iyo kuwa dhaxdeena ku dhintay iyo marka laga yimaado kumanaana uga dhimatay ayagoo dawlad Soomaaliyeed difaacayo maalintii madaxweyne Cabdiqaasim walkaan yimid iyo maalintii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf joogay iyo maalintii madaxweyne Shariif joogay maalintan aniga joogayba wiilal Soomaaliyeed dawladnimada Soomaaliya u dhimanayay oo deegaanna kala duwan oo fara badan joogay kuwa beeshaana waa ugu sii horeeyay nama qabato maanta in qof oo lagu tilmaamo ama lagu sheego inaan ama qaran dumisnahay ama dawlad diidnahay ama kanahay laakiin dawla bimacna kalima dawla rabna ana iri ana ka dhacay ana joogaayo ana muxuu ahay go'aaminayo ana ka waxaysna mala qaanuunkaana lagu xukumayo sharciga waa ogolnahay wixii lagu heshiiyay waay haddii la waayo maahano waana la warsanaa talaan leenahay waana la tashana waana la weydiina mushkiladana taaganaysa looga gudbaahaana la dhaha tala fiican oo dalka iyo dadka u fiican yaan leenahay yaan jeedinayna laakiin ana iska dhahanayo iyo muxuu dad yara iska dhahanayo ma waa meerto madaxweynaha hal maalin annaga ma question gareynin kuma ballamin cid kulama hadlin in madaxweynaha iyo sharciyadiisa iyo xukuumadda iyo dawladnimada iyo baarlamaanka iyo jiritaankooda in la question gareeyo laakiin niyo meeshan ama wax ka qaldan yihiin hadii la yiraahdo macnaheedu ma aha in madaxweynaha la question ama su'aal la geliyay ama sharciyadiisi ama dawladnimadii wixii qaldan waa la sheegaa waana nidaamka dimuqraadiga
dimuqraadiyadda iyo dadka dimuqraadiyadda dhisoo dhan qiime inay bixiyaan ay tahay laga rabaa waa midaan ku bilaabay ra'yiga qofka ka soo horjeeda waay haddaadan aqbali karin ra'yiga qofka ka soo horjeedo oo korku ku muxuu ahay ku gubanayo oo laga yaabo inaad awaamir iyo wax kala aad bixiso dimuqraadiyad ma dhisi kartida walax kala doono laakiin wiil Facebook ka qayliya mid maxaan ku raaa internet ka hadla mid television ka hadla mid maxaan ku raaa meel kale ka hadla lama hor istaagi karo laguma ciladay karo laguma ceebi karo dadka qiimeynaayo hadalkaas oo qofkaas yiri dadka intana la soo hor fadhiiso dawladahan muxuu ahaay intii la dhisaayay federalismka ka shaqeynayna maalmaha ka mid ah mar walba waa sheegaa qabiil Soomaalida waxay dhaheen madaxweynaha rabnaa kaligiisaan rabnaa wiilashu ay madaxweynaha 30 qofood 40 qofood isla socota madaxweynaha kaligiisaan rabnaa dhays kaliya meel kugu magay karnay maxay reer hebel maahan oo magac qabiil mootaan oo ka leexda magac qabiil wax lagu mahalay kare madaxweynena wax looga mahalay kare waa sharaf ay u tahay madaxweynaha waa soo dhaweeyay provocation in inta laga xanaajo waa edab darantiina tago edabna ma qabtiin aan iraaha yaa lagu soo tashaday oo la yiraahdo waa kaasa madaxweynaha waa la diiday mana ku jirno shirkaan anagu waa ka baxnay waxaana waxba ku maleeyay nima istaagay suldaan hebelow warana la yiri ninaan la magacaabo aniguna waa ogaa baashaas inayna suldaan lahayn aan ogaa markii in fidna la soo wado waa fahmay markii suldaan hebelow hadal markii la yiri in fidna la soo wado waa fahmay madaxweyne Soomaaliyeed ku maleynayna ma ahide nabadoon reer hebel ahaa taalayna meeshaan cawad waxaas u fadhida meeshaan aa u timid waa dhageystay mid wariyaha madaxweynaha maxaa soo wariyaha warkayga idhaaf waa la isku qeyliyay warkiis u dhaaf suldaanka ha hadlay ka leexda warkii ma gow dhameystaan ayada lafsideedan qaadanaynaa wixii kale iigu timideen ii sheega ayadaas lafsideedan qaadanaynaa nabadoon uu soo burcada tahay oo tuuga qoraya qarab waxba dil rabta ama la ilaahay nabadoon soomay nabadoonnimadan qaadanaaye nabadoonku wixii kaga dhex jiro hal ii sheego markii dab waxay ku soo dhamaatay hooyaasho iyo raalli ah iyo kor la ii qaado waxaan kugu soo talagalnay iyo waxaadna tiri isma lahe raalli ahaada raalli ah u leeyahay dimuqraadiyadu saasay leedahay telefishinada iyo YouTube-ka meel walba ku jirtaa waa ku duceynaynaa dhaaf public life ma ahayn doorashada macaan ahayd waa maasantaa garad waa maasantaa marka waxa waaye dimuqraadiyad iyo dawladnimo iyo dad ina isu keentid hadaa rabtid waa ina wax badan u dul qaadataa wax badan u adkaysataa wax badan aad aqbashaa banaankaas markaad maraysid laguma dhahay intaas oo dhan beledkaanaan joogay madaxweynenimada anoo 60 sano ku sii dhawaan imiday 52 sano jira weligayaan joogi jiray maraan macallin jaamacadeed ah maraan maamulo ah maraan hay'ad madax ka ah maraan bulshada rayidka madaxdeeda beledkan aan kamid ahaa hal maalin leeyma caayin wax leeyma sheegin leeyma waxayn laakiin mugan madaxweynaha noqdaalba marka waa inaan fahmo waa reasonka wixii dadka ka dhaxeeyo dhashaaka kale dib badan waa sheekadu waa badan tahay duurkiina dadku waa haya dadaan wali dukana waa fadhiyaan meesha mar raba inaan ku sii dheeraadee awada faataxan ku mareynaa waxa nimana yiro reer hebel gobtoodii ugaasidii iyo muxuu islaawiyadii iyo dadkii aan nahay faataxan ku mareynaa candhuuftii dadka oo nalagu soo tufaan wadana waxa markaas leega dalbayay qabiilkaasi waa rabeen laakiin dawladnimada ma socodsiineen mashruuca dawladnimada ee inuu socdo aan rabnay ma socodsiineen tuftaasa wadana waa ku duceynaynaa waa soo dhawaada akhirta first waxa rabtiin waa la helaa waa heshiinaynaa isdiriirmayna waxaan dhahay tufta aad wadatiin reer hebel soo ma aydiin tufta aad wadatiin reer hebel ka badan ma wadatiin mise tufta reer hebel aad wadatiin tufta reer hebel aan wadana aan is aqbalno walaalayaal ka beel ahaan aan isku aqbalno ka Soomaali ahaan aan isku aqbalno yaanan dhibsanin warka nin kasto Soomaali xuduud inta ka gudbay xuduudaha ka gudbay ee qoryo qaatay oo rag badan meesha fadhiya ay kamid yihiin Soomaali kale buu ka cararay dalka markaas uu ka cararay
gumaysina ma haysan isticmaarna ma haysan Soomaali kala xukumayay ama reer kala joogay oo waa ka xoog badan yahay waa ka adag yahay waa ku dhageysan waayeen kuma rabaan oo yiri dadka yaanan iska eriyin qof walba aan dhageysano ra'yiga aan qabno aan ku qancino ama ka wataha nagu qanciyo midna waa isla qaadanaa aad iyo aad u maasantihiin waxaan leeyahay guuleysta dhamaantiin Soomaaliyana ha noolaato nabad iyo dawladnimo iyo doorasho waqtigeedii ku dhacda assalaamu calaykum